midowda Yurub ayaa salaasadii uga hanjabay hogaamiyaasha Soomaalida gaar ahaan kuwa ku wiiqaya wadahadalada doorashooyinka inay la kulmi doonaan cawaaqib ka dhasha ficiladooda. War-saxaafadeed xalay ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Yurub Master Jobsi ayaa loogu baaqay madaxda Soomaalida inay sameeyaan isu tanaasul horseeda hanaan doorasho oo degdeg ah si nabad ah oo talada lagula kala wareego iyadoo la raacayo heshiiska 17 September. midowda Yurub ayaa sheegay in isfahan la'aanta hadda ka dhex jirta hogaamiyaasha Soomaalida ay si weyn dib ugu dhigayso xawaaraha isbedelka ee ay sida dhaqsaha ugu baahan yihiin dadka Soomaaliyeed. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ixtiraamaan mas'uuliyadda ka saaran shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay si degdeg ah u qabtaan doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Bayaankan ka soo baxay midowda Yurub ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha siyaasadeed ay naftooda ceebeynayaan si ay u matalaan muwaadiniintooda marka ay danahooda shakhsiyadeed ka hormariyaan danta guud. Kuwa ku wiiqaya wadahadalka ama miciin biday inay adeegsadaan qalalaaso waxaa laga qaadi doonaa tallaabo. Waxay wajihi doonaan cawaaqib ka aadan ficiladooda ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay midowda Yurub. Madaxda Soomaalida ayaan wali heshiis ka gaarin doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtinimada kadib markii bishii February ee sanadkan uu dhamaaday mudaxileedka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. midowda Yurub ayaa dhaqaale xoogan ku bixiya dowladda federaalka Soomaaliya iyo howlgalka ciidanka midowda Afrika ee Soomaaliya. Habi Ibrahim, Bulsha TV.